waayahay waxaanu wanaagsan meel kasta aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa Somali American TV haddaba waa arinta aan ka hadli doonaa maanta waa waayaha cusub iyo heesta cusub oo soo baxday haddaba waxaanu eegi doonaa oo falanqeyn doonaa bal heesta cusub maxaa ka dambeeyay iyo halkii ay ku dambeysay bal marka hore Ali ku soo dhawo barnaamijka waa dhawahay yes thanks Ali dawaad maqashay heesta socota ee waaya cusub soo saareen kooxda waaya cusub maxaad ka taqaanaa kooxda waaya cusub oo kuma horta heesta waxay dhex boodisay social media wasaase internet heesta u geliyo waxa ka hadlayso waxaan dib u eegi doonaa horta kooxda maxay waayaha cusub kooxda waayaha cusub waxay koox lagu aasaasay East Africa Nairobi Kenya haye waxay ahaayeen koox aan aad loo aqoon haye oo u qaabilsanaa Soomaalida wacyigelin ay ahaayeen inay dadka Soomaaliyeed wacyigeliyaan way ku wacyigeliyaan nabadda haye horumarka iyo barwaaqada wasaas ma ahayn urur siyaasi koox siyaasadeedna ma ahayn sidaas ku bilaabmeen qaramada midoobay laamaheeda kala duwan qaar kamid ah ayaa markaa gacan siin jiray oo caawin jiray dhalinyaradaasi waayaha cusub xagga kharashkan ka hadlaya wasaas kharash yar baa la siin jiray marba hees bay sameyn jireen ay ku amaanayaan dalka iyo dadka ay ku dhiirigeliyaan in nabad la raadiyo iyo in hore loo socdo weligood ma noqonin koox ama mucaarada ama muxaafada ama dawlad ama maamul la jirto shacabka haye kooxdaasi waayaha cusub aad looma aqoon hada haye laakiin heesa aynkaas soo saari jireen ayay qaadi jireen wasaas kooxdu waxay caan ku ahayd habka ay qaateen iyo hanaanka musiga iyo ciyaaraha ciyaarayaan waa hanaan waafaqsan mid aan waafaqsanayn dhaqankeena waa mid heesaha raabka Mareykanka noociisa loo qaado hatta ciyaarahoodu iyo sida isla leeyihiin madowgii waa nooc madowga maartay sida u heesaan marka dhaqan ahaan ma waafaqsanayn laakiin fariinta ay dirayeen baa ahayd in nabad lagu waaro nabad la raadiyo wanaag la raadiyo kooxdu yaasino koox cod fiican oo laga daba dhaco ma ahayn wasaas xagga codka marka laga hadlo waxay ahaayeen koox dadkooda iskaga jirta oo aan markaba ku soo dhacayn ma jirto qof inka oran karay Soomaaliya ni waan u xiisay hees waayaha cusub inoo saara مثل صدق كم شيء مرة خاركود خضر داري نصارى يبقى كله بالمانتنا سبتر نصارى مركب متشر قف سماري وحيس يورا بالوجه عثمان نصارى قف كاس متشرو تا واحد قال صرت أنا هندي كوح خطرة أو سومالي سامي وين كله معها واساس مركب كوحلو هل كان مركب مريسي وحي تجان ودك هولند أي برنامج شو تجان تبي تروس ديبين بالقحوتية ووضنك يدح كلا حسوا تجا مركور برنامج وتجا وعيقلين تكون شيء أي بحاجة وتجا إني صار نظام به واسكديبين وبحثنا هي مركب بحثنا عد بالله ما يحد لنا دبريش كودي بكرسنا واساس وياه أن كوحلا وياه عصب وح ننكا ملها أصلا يا هست أما قدوميها وقع شينا على هذا هي شينا وكما شينا وحقبا قبل هيستن كويسة فلس بالله حاسكيسي هي marka wanani xaaski oo imika dagaalama yabo egin markii horena wacyi gelin jiray dadka wasaas taa waxa la mid ah waana imika xaaskayguna ay heeska daba qaado haye oo layska isla jibisaan aan isla jibino wasaas marka imika kooxdu waxay isugu soo ururaysaa nin iyo xaaski oo heesaya waxay doonaan baa ku heesaan kooxdaas waxay ku baabaaday isdiibidaas haye halkaas lagu kala tagay hees cusub bay markaa maanta ay soo saareen way marka heestu maxay tahay soo saareen heestu iyagu de garaadkooda sida ka muuqata waxa ay doonayaan in ay lid ku noqdaan dawladda federaalka Soomaaliya haye malaha magaceeda marka soo gaabiyo nabad iyo nolol anu ma arag runtii cali ahaan meel dawladda federaalka ay ku tiri anaga nabad iyo nolol baa leedahay laakiin dadka ka maqlaa anu cali ahaan haye dadku ma ka maqlaan naanistiidu way miyaa naaniskooda laakiin anu kama arag iyagoo leh urur caynkaas sabanaay marka heesta nabad iyo nolol ayaa moodaa inay kaga soo horjeedaan heesta hadoo maxay ka koobantay haye murti Soomaaliyeed kuma jirto waxa ku jiraan waa nacnac haye waa heestaan uu qaado fala degaan oo kale
وفلد جنبي برجية نوعيس أو كلا نبضي إنه نحلي ولا لا تجا نبضي إنه نحلي يعني هاس مرتيلة وهاس مرتيلة ما أورب كرا إريع عجيبة والله قد بدعي لو قد بدعه مسكحية كل سنة مركب مستوى هاس وحقوق هاس كريه مستويه في الدجال وحقوق كقلب بدن قلب كلا جراعي كلام بدن أن مرتدو يعني مرتي قصة عطاد دولة وحش شيء كمان موقته يدليل لكن ما شو حكم موضة حناق هستو هس حناق لوسبي حناق أصحاب قيمة دولة ده يكاد حياة إنك كواحد مركو رسمي وأساس الشيء هي حوكي أنا كل شيء بدون حناق اسمه شو قيمة وي لكن واحد ربنا نكون عليو إن دتك مركي دونيان مركي بدها وذا كم غيين إن الدب صباحان والله أركو إنه شيء وايها عصب السون نقطة إن السون نقطة هل كده هناك بلعب الهاين وهذا هو عقلين تود هذا هو أنا كان أورن الهاين والله أورن الهاين نذرلاند بهذا كده لعبة كوحدي بسوق علي أما صولة بك على شيء وحيو كبلعبين إن كسوق عن أي يفلقادو يد الغاف وأنا تاي بدي الصومالي أي تعليه المركز الصوت صاريان أما إن لا أرك يبهيهن أما إن عن نقدان وإن عد عيان أما عد معان وأساسي مركا إن الشينا مركا محوية الشينا حقوق يوم حوسة صوت يستا كدم بسمحته وولد اللي يراه وحاوي السيجا فلس أرن قصد إنه كان من حكاد لنا أرن فن هو أساس كوح لا شيء أي كتير أي كتيران شين محوية بدو يديس شينا هدي سكر عنو دقو فرمات على روح سماد ساسي استقنا بوقت واستلمام يخان أنا waxaan jecelahay inta markaan hadlayo inaan bisraax u hadlo dad badan bay dhibtaa marka intii aan wareegi lahaa inaan point-ka ku soo dhawaado waa fiican marka ali maxaa ku kalifay heestan xilliga adeerkii wax ma siin waay adeerkii saxu diiday Soomaalidu waxa aaminsan hadii adeerka madaxweyne noqdo ama nimaad isku jifatiin uu madaxweyne noqdo wasaas adiguna madaxweyne kalaatay marka dalab fara badan buu soo qoranaya dalabkii hadii la yiraahdo ma soconayso hawshan Soomaali baa iska leh wuxuu bilaabay marka dagaal okay ninkani markuu arkay in koox wacyigelin uu sameeyay in aad loo yarjeclaaday markii hore dadka qaar oo wacyigelinta dhinaceeda laga eegay wanaaga Soomaalinimada markuu arkay in kooxdii ka burburtay markuu tagay Netherland sidii doontaba ha u dhacday wuxuu sameeyay xiriir uu la xiriirayo dawladda oo ah in dawladda markii hore uu difaaci jiray in markii hore maamulada iyo hadii jeer uu yahay nin nabadeed oo dhinaca wanaaga Soomaalinimada u badan ama dawladdan ama ka horba marka xiriirka markuu la sameeyay deena reerkiina waan ahay uu leeyahay ayaa dawladdii ay ka yar aamusay hawada haye dawladdu waxay u sheegtay xildhibaannimada wuxuu ka dalbaday xildhibaan inuu noqdo xildhibaan buu ka raadsaday ma lacag haye xildhibaan markuu uu ka codsaday dawladdu waxay u sheegtay sida uu ku heli karayo xildhibaanku inay tahay in odayga reerkooda ninka ugaaska u ah uu soo maro صح xilliga dadku ay de ololaha ku jiraan inuu soo ololeeyo odayga u tago odaygu jifada uu ka tirsan yarka shiine meel socota ay صح fiican in ay soo diraan oo soo bandhigaan haye inanka wuxuu la xidhiidhay reerkii iyo odayaashii nin qurba iska jooga oo aan lacag siinayn حق العقبة كشخص حقها العقد waxay ka jecel yihiin nin reer miyo reerka hoo ama dukaan haysto wuxuu siiya markuu xildhibaan noqdo baarlamaanka galana biil u qora wasaas marka arrinkaas waxa u baahan tahay inuu shiino duulo oo odayaasha dhex tago oo garoonka ciyaarta ka socoto uu tago wasaas telefoonka waxba ugu hagaag waayay haye inag raali haween haye dawladda hadda ku noqday haye wuxuu dhinacii odayaasha waxba kama hayee idinka waxaan ka rabaa inaad de awoodina dawladnimo aad mujisaan in xildhibaan aad ka dhigtaan dawladda federaalka yaasino xamar ka jirta anu caleehan hadii aan saaxiib ilaahay nahay farmaajo aniga farmaajo igama dhigi karo xildhibaan kama dhigi karo wada soo martaa weenan tagaa buurta cal aad ka soo lugaysaa aan ka soo bilaabaa dhakadeeda marka kadib aan buurta cal loo qiiman xamar ibn alka waa nidaamka ku dhisan tahay dawladnimadaas yarkuna inta ma fahansana yarkii marka jawaabtii uu siinay dawladii ay wuxuu tusayaa inuu dawladdan hees ku burburin karayo way ali saynu ognahay heesta dad badan baa dislike saaray oo ah konton kun inta daawatay iyo inta dislike saartay badan maxaa keenay taaliftii horta heestani yaasino waa heestii ugu horeysay
320 kun oo qofna daawadeen 25 kun oo qofna ay dislike saareen maxay sababta ka dambaysa maxay waxa weeyaan markii ugu horeysa filawaaba dadka ku noqotay haye in dadkii shalay wax amaanayay ee wanaaga ka shaqeynayay ay maanta IT ugu xumayd ay dhigaan ay la soo fadhiistaan way taas waxay ku noqotay horta niyad xumo dadkii number 2 waxay tusaysaa taageerayaasha dawladdu inay aad u tiro badan yihiin dad tiro badan yihiin inay dad tiro badan yihiin oo ay cuburin karayaan kuwan ka soo horjeeda way taasna dhinac bay ka muujinaysaa marka kuwan waa taageerayaashii dawladda ma aha dad ku kacsan gabadha iyo wiilka ma aha laakiin waa dad taageersan dawladda taageersan way yahay maxaa dhinaca dawladda maxay tahay heesta ay maxay sababta ku diideen maxay sababta ay dawladdu wax xanaaqeen waa su'aal aad u fiican heeso badan baa loo tiriyaa dawladda mushkiladeeda waxa weeye intii dawladda la jirtay yaasiino 150 heesood ayaa la sameeyay oo ammaan midhan haye hees wax taris hay oo dawladda lagu amaanayo wasaas oo farmaajo lagu amaanayo oo khayra lagu amaanayo waxa weeye mid maalin walba soo baxda beetay ayay tahay in iyaguna ay dul qaadan kari waayaan hal hees oo maalin lagu maagay waxay ka mid tahay dul qaadiyarida dadka dawladda taageersan iyo dawladda lafteeda wasaas way dawladdu waxa loo baahan yahay inay ogolaato in 150 qofna ay heeso amaana u soo jeediyaan 10 qof ama 20 qofna ay heeso ay diidan yihiin ay ku keenaan marka dimuqraadiyadiina way ka fogtahay waxaad kala moodaa durbaanadii aynu baranay ee hore dawladda ka horeysa ee nacamlaynta ahaa imay dawladda raadinayso ay iska jecelyihiin dawladdu Soomaalidu marka Soomaali oo dhan iyo maamul kasta waad ogtahay oo heesii ugu badnaa nin baa lagu hayrgareeyay Puntland ninka ugu sareeyay madaxtooyadu nin heesaa sameeyay buu marka heesaa maanta daasmaysid waa hore ka soconaysa labsalax hargeysa abwaanada ninka ugu caansan ayuu ka mid yahay waxa sababta keenaysa waa taageerada Muuse Biixi dawladdiisa oo heeso sameeyo fiican oo heeso sameeyo haye ninka hees qori karaya waa ninka qori u shaqatay karaya madaxtooyada kasta hadduu amaano wuxuu deegaynaa waa amaanba ilaa markuu madaxtooyada galo ma keenay hees caaye waxaad arkaysaa dad soo dirsada lacag oo abwaanada dabadda jooga u dirsada oo yiraahdo hees ii soo samee amaana oo aan dawladda ku amaanayo si shaqo laygu siiyo wareer weey marka dawladdu taa waxay iiga muuqata guul wadayn iyo dulqaad yari in dawladda federaalka ay ka muuqato way caliyow marka dawladdan hees inta soo sanaad sheegaysin loo soo heesay oo maantan heestan qaadan weydi shacabka Soomaaliyeed maxay tusaysaa marka horta cid walba ammaan iyo daliil weelada dawladda federaalku haday u gooni noqon lahayd yaasiino inay ammaanta kaliya jeceshahay waxaan oran lahayn aad bay ugu guracanta arinta laakiin maamulada gobolada ayaaba ka sii jecel amaanta oo Puntland ugu horeyso oo Soomaaliland laba tahay inkastoo Muuse Biixi ninka la yiraahdo aanu heesahay waxa isagu dhinaca fanka kuma fiicna beel lama sheego laakiin Soomaali meel ay joogtaba amaanta way jeceshahay barigi Maxamed Siyaad Barre ilaa uu naxariistay ayaa nin wuxuu ka hadlay isagoo meel taagan yaasiino wuxuu sheegay idinku waxaad barateen buu yiri Maxamed Siyaad Barre kartidiisa iyo wanaagiisa iyo ficnidiisa laakiin haddii ninka aabihii baran lahaydeen waa ficil lahaydeen Siyaad buu sheegay marka waa ninkii dhalay Maxamed dhalay marka wuxuu bilaabay ammaan uu amaanayo Maxamed Siyaad Barre aabihii ninkii sidaad sameeyay ninkii labada libax meel ku dilay ninkii kaliya ceelka qoday ninkii buurta halka ammaan aad u tiro badan ayuu ninkaas soo jeediyay dadkii aad baa loo sacbatay way Maxamed Siyaad Barre aabihii ciidan marka taariikhi mahayn wasaas markuu inta dhameeyay soo baxay baa la warahay wallahi maanta shay ka dhigtay dadka aad bay ku jeclaadeen mar alle markii aad Maxamed Siyaad Barre aabihi amaantay ummadii oo dhan shacabka lagu tubo nin khatar bil abaad wuxuu ka waran hadaan hooyadii ku dar lahayd أنا هو يدي دوسك كده. إسلام تطلع يقول أمان تدي كله. حاول ما نسبه. وكلو كل عرلا بس. كل عرلا. مرة تقول ده قولة ما هي. سومالي أردن بارت الدربان كاتشعل. أو نعب إن للدليلو أما حيس لصوص صاروا فرتكوا في قصة دليلو لكن حيس ثاني. هل ترى وبانه. هاي. إنه هو عايد. إنه أبوه وين دونته ومرفع عن أردليش الدولة الجراعية. إنه كانوا. لكن من نقول إيسو وحوين على تمادي
waxay noqonaysaa iska sheeka caruureed naxdin iyo nabad nandhaaf inaad tiraahdo kale wax iska لكن علي هذا هسه ما دقيس ما دعوتي ها وان دعوت حد كفاية بركة كوكا صوب حي والله ما كان عرفتي هسه عاد مغش ديواني مركو قيمه مرات ku cilniyaa yarkii aan faladegaan oo music fiican helay ayaan baa akad murti fara badan oo ku jirtay ma jirin oo aan ka xuuraansadan wallahi nimankan murti waa weyn soo daayeen ma jirin لكن هذا شيء سيدي ماني wax micna leh aan sameeyay maxaa intaas oo kun oo Soomaaliya ka xanaajiyo dislike ku saareen in arintan horta social media waxaan ka faalanay barnaamijyo fara badan oo kaftanka siyaasadda kamid ah dadka dawladda taageersan ayaa imika heestan waxay gaarsiiyeen halkii ugu sareysay anigu maanta maan maqleen cali ahaan shakhsiyan ana iska hadlayo adiga kama hadlayo maan maqleen heesta haddii dadka dawladda taageersani aanay buunbuuntoodii social media u soo dhigin iyagoo dadka heestan qaaday caaya haddii waxa aan meesha soo dhigin anu ma baan ogaadeenba dadka heestan buunbuuniyay ee badda keenay ee ummadda wada gaarsiiyay ee sidii wiilka iyo gabadha isqaba ay rabeen inay dadka u gaadho nin walba inay gaarsiiyay waa taageerayaasha nabadeen nolol iyaga fahmeen bay wayaga dadka iyaga baysta waalay haddii yaasiino qof ku maaga imika oo social media ka maago dad kooban baa ku daawanaya ama ku dhageysanaya okay dadkii ninku caaya way arkeen haddii adigu aad jawaabtay soo fariistay studio oo aad ninkii maagtid ama isdifaacdid warkii adiga amka faafiyay ala si buunbuuniyay ada ummadii oo dhan wada sheegay in ninku maagay ninka magaciisa hebel la yiraahdo uu joogo meel hebla uu sida ku yiri adiguna sida ugu jawaabisid marka dadku iyaga heestii lagu maagay meel walba geeyay oo gaarsiiyay laakiin sideen ogsoonahay kulay nabadii nolol waa kamid dadkan qaadan way heesta ay soo tiriyeen waayaas ma malaynaysaa macaaradka hadda soo baxay ma qaadan karaan iyaga laftoodu oo qaadan kari waay heestan yar oo la sameeyay qaadan kari waay dulqaad u yeelan waay inay u qaadan karaan macaaradka dulqaad u yeelan karaan horta mucaaradnimada dhinaca suugaanta iyo mucaaradnimada dhinaca heesaha dadka caadiga ah ee dawlad ku mucaaradsan ama urur waxa khatarsan dhinaca suugaanta takala basida dadka gabayada tiriya heesaha tiriya dadku way u dhigan nugul yihiin fariintoodu way gaadhaa meesha la rabaan laakiin maalba hadda la soo fadhiisatid farmaajo wuxuu sameeyay sidan khayr wuxuu sameeyay marka dadku khaatimi ka istaageen laakiin waxa dadka ku badan laakiin dad suugaan la timaadid ama hees la timaadid iyagu heestii dhageysanaya dana fahmayaan ay heestii iyo fariinta ay sidaba u gaarsi waa haddii heestu ay tahay hees midho fiican leh waxaan tusaale soo qaadan karaynaa halgankii SLM taw kale waxa inta dagaalamaysa qori ku dagaalamaysa ka qori weynaa maxamed ibraahim hadraawi gaariye ragga ka mid ahaayeen abshir inkii la oran jiray SDF ee gabayada isaguna ayaa fariimahoodu ay ka degdeg iyo dhaqso uga gaari jireen in fariinta ay u gudbiyaan shacabka si tooska marka waxa la mucaaradka Soomaalida horta heesta iyo suugaanta wixii lagu tiriyo ayaa uga dhaqso badan in ay umada saameyn ku yeelato sida heestanba ay saameyn ku yeelato aliyo kulli Facebook oo ku jirta Facebook commentiyada iyo like iyo dislike ma la iibsan karaa iyada laftii sidee loo iibsan karaa waxa la iibsan karaa marka aad doonaysid in like for badan lagu saaro sax iyo dislike waxa doonaysaa noqoto iyo comments in la bixiyo waxa doonaysaa mesela aad ka dalbanaysaa Google-ka 200 oo comments inaad u baahantahay أكيبسنسا مركز Chinese بحتى كل عضلة Chinese فكورة يا نيويا Chinese بكل عضلة واي بردويتو أيا نحرفه أذيقيني أن أرمان كان قال لنا comments يو like يو dislike وحا ضد أي سمين فيسبوك أي وحي ليه وحن دور شو إيجنا عض بحنا فرماتشو يحصل الشيخ ونيب سنيا مركز نبى هوش وذي مركز نكيبا نبر أدو تربان فوهلاي أيوسي حسن الشيخ أيه مركز نحرف أرما أدو يقاني أيا دبو باريوح أيه comments يدك عدك بحية أردن ويار أيو دب أسرّي أيه بين كل شيء ما Chinese بكبر سايت الوصح يا لو وحلي يبسدوي لو وحلي يبسدو مركز خل بالك لي هذا هيست مركز dislike لقى دقي شر يلا باتنكون أوقف أنا ولي صعته قولي أن هيست صدفت واحد بين like تي dislike يجلس كحدا like بقولي سدتكو أنا وارق سأنا وارق بي
علي محمد كارتين سجل جبدي والله أنا ودتك waxaan kula talin lahaa Talo. xilligan in kala joogo Soomaali inay afxumo ku kala tagto وحنتها way xun tahay haddii aad mar hadashana adigoo wanaag ku hadli karaya inaad xumaan ku hadashid ma fiicna inamada iyo kooxda waayaha cusub ee muddo hawada ka maqlaa in saaka ay ku waabaristaan hees dhinaca xumaanta matalaysa ama ummadda Soomaaliyeed kala kaxaynaysa waa ayaan daro taasi taa waxaan leeyahay qolada kooxda waayaha cusub dawladda waxaan leeyahay haddii kii hadlaba aad tirahdaan u jawaab haddii kii hadlaba aad ciyaar idinkuna social media aad ku yaacisaan aad leedihiin caaya idinkana dawladnimadeeni ma noqonayso mid la isku hadlayn karayo mid la harsan karo mid lagu faani karo idinkuna qayb baad ka tihiin ummadda kala kaxaynteeda iyo kala fogeynteeda waxa wanaagsan in ummadda Soomaaliyeed xilligan dhaawaca ku jirta ee ummadda Soomaaliyeed waxa weeye qof yaasiin ku dhacay geed qodax meedho sax oo meel walba qodaxda ay ka gashay sax qofka hadii la weydiiyo yaasiin oo la yiraahdo warniyo qodaxahan faraha badan ku jira meel walba qodaxda baad jeclaan lahayd ama jirka dhinacee baad jeclaan lahayd in laga guro wuxuu oranayaa haduu caafimaad qabo maskaxdiisu ay fiican tahay salka ama barida meeshu fariisanay waayo meeshu markuu fariisto ayuu xogaa miirsanaya he get relief wuxuu oranayaa marka kun indhaha iga saar kun madaxa iga saar laakiin isaga oo sare joogo oo meel walba qodax kaga jirto kuwa dhabarka iga guro ma oran karo qofka Soomaaliga waa qofka horta haduu dawlad yahay iyo haduu mucaarad yahay iyo haduu fanaan yahay iyo haduu sheekh yahay waa nin intaas oo qodxood ku jirto ninka maanta halka la soo istaaga afxumo iyo kala kaxayni waa nin yiri qodxaha kuwa barida ii daayo kuwa laabta iga guro dhibaato way cali aad iyo aad ayaad mahadsantahay waaniga yaasiin cali waxaan ka tagayaa sida iyo nabad geli